waxyaabii ilaahay subxaanahu watacaala ku baneeyay waa inaa u isticmaashaa. laakiin haddii aa u isticmaali weydid dee markaas magaranaysaa kuma shukri naqin oo ilaahay subxaanahu watacaala nicmaduu ku siiyey meel wanaagsan ma dhigino dee xakiim ma tihid, qof xakiim ah ma tihid. raadiyan xaliima, qof magaranaysaa dulqaad fara badan leh. raadi, qof dulqaad badan leh oo magaranaysaa raadi, qof raadiyan, qof macnaha raali ku ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qoray wuxuu siiyey. ma marka qaarkii bini aadamku waxay nasiibkiisa siiyaan. waxaa laga yaabaa dee bini aadamku inay marmar adigoo wax weyn doonaya marmar magaranaysaa wax yar ku siiyaan. adigoo magaranaysaa bini aadamku makaana iyo boos leh oo boos weyn leh in ay boos yar ku dhigaan oo si yaroo hoose kula dhaqmaan. markaana waa inaa raadi tahay, waa inaa raali tahay oo waa in aad magaranaysaa waxyaabaha adduunka waa inaa raali ku tahay haddii ilaahay subxaanahu watacaala ku siiyo. ama qof hadduu magaranaysaa waxyaalaha adduunka ugu garto wax yar waa inaa raali ku tahay. oo meesha aan raali ku noqonayn waxa weyn waa aakhiro. camalkaaga wanaagsan iyo meelaha waa wanaagsan iyo hamiga weyn aa leedahay iyo waxyaabahaas waxaa la doonayaa in aa wax weyn raali ku noqotid. laakiinse wax yar inaad raali ku noqon ayaa la doonayaa. laakiinse waxyaalaha adduunka ee iska caadiya magaranaysaa hamigaaga iyo qaayadaada aan ahayn magaranaysaa in aad raali ku noqotid wax yar dee waxa weeye waa wax sharaftu iyo karamku u keenayo. rafiiqan cafiifa, waa qof magaranaysaa intaa kula socda oo kula socda hawlahaaga kula socda oo ku heelinaya oo hadday dhibaato ku dhacdo garabkaaga taagan. cafiifan waa qof cafiif ah oo dhowrson oo xumaantii ka dhowrson oo dunuubtii iyo macaasidii ka dhowrson oo sinadii iyo waxyaabihii ilaahay subxaanahu watacaala xarimay ka dhowrson. shafiiqan laa lacaana, waxa weeye qofka akhlaaqda wanaagsan waa mid raxmad agtiisa ay taalo oo ku naxariisanayo. waxa weeye waa mid aan ku nacdalayn oo magaranaysaa qof markuu wax caayayo badanaaba ama wax maagayo badanaaba cay iyo maagitaan iyo lacaan maaha. qof wax naclatullaahi calayk intaa dhaha oo magaranaysaa ilaahay habaar badan oo magaranaysaa oo ku habaara oo ku nacdala. qofka akhlaaqda wanaagsan maaha qofkaas. markaana waa wax uu ka fog yahay waxyaabahaas oo dadka iskagama habaaro. dad baa arkaysaa maanta oo dhan dadka iska habaarayaan, qof aan waxba ku samayn ayay iska habaarayaan. walaa xuquudan walaa bakhiila walaa xusuud, macnaha mid xiqdi laabtiisa uu ka buuxdo, xasid weynaaday oo magaranaysaa bakhiil. laa lacaana walaa sabaaban, mid cayb badan maaha. walaa namaaman, mid wax isku dira maaha. mid wax isku dira maaha oo magaranaysaa dadka xumaanta ka shaqeeya ee dadka saaxiibada ah, dadka is jecel, dadka isku dhow, dadka is aaminsan, dadka magaranaysaa garabka isku ah mid ka dhex shaqeeya oo isagu intuu soo fariisto magaranaysaa ummadda xumaantooda ka shaqeynaya maaha. walaa muqtaaba, mid wax xamanaya. walaa cujuula walaa xuquud, mid degdeg badanna maaha oo magaranaysaa wuxuu maanta ku aansado wixii karaankiisa uu sameynayaa, wixii magaranaysaa karaankiisa ahayna kuma degdegayo. sideedaba waxa adigu awoodid ku degdeg, waxa awoodid ku degdeg, waxaadan awoodinna ha ku degdegin. tusaalahaan maanta waxaad doonaysay in magaranaysaa ameel aadid meeshii kharashna waa loo baahan yahay, safarna waa loo baahan yahay. kharashkii markaa heshay kharashkii ku degdeg, kharashka waa ogtahay inaa helisid, kharashkii waa aruursatay laakiinse safarkii baa ku suurtageli waayey. safarkii baa kuu suurtageli waayey. safarkii hadduu kuu suurtageli waayey ha ku degdegin. hadduu kuu suurtageli waayey ha ku degdegin, dib dhigo. laakiin maxay ku degdegaysaa? waxaad awoodo oo ah kharashkii hadeer inaad aruursatid, taa ku degdeg. markaana sideedaba waxyaalaha aad ku degdegaysid, sideedaba waxyaalaha go'aamada adduunyada waxa weeye waxaas waxaa laga yaabaa qaarna inaad ku degdegtid, qaarna inaad ku degdegi karayn. tusaale ahaan wixii hadeer safarkii oo kale waad awoodaa inaad kharashkii aruursid aad ku degdegtid, waad awoodaa. laakiin marka arrimaha guda gashid oo aad istiraahdo safarkii gal oo aad safarkii doontid ayaa waxaa ku soo baxaya shaygan hadeer inaadan samayn karin oo maalin kale beri iyo saatama iyo meelaha kale aad dib dhigisid ilaa aad dib dhigtid maahana inay kuu suurtagelin. markaana markaa hawsha guda gashid
ayaa waxay ku soo baxaysaa shaygan ma hadeeraan samayn karaayo miyaa ku degdegi karaa mise kuma degdegi karo. laakiinse qof meeshiisa iska taagan oo aan magaranaysaa far dhaqaajinayn oo leh magaranaysaa anigu degdegi maayo, magaranaysaa waxaas waa khalad. marka hore hawsha bilow, marka hawsha bilowdid hadhowtana waxaa ku soo baxaysaa inaa waxyaalaha qaarna aad ku degdegi karin, waxyaalaha qaarna aad ku degdegi kartid. wixii aad ku degdegi kartidna ku degdeg oo magaranaysaa samee, wixii aadan ku degdegi karin oo aadan hadeer heli karinna dibdhig. laakiinse hawsha waa inaa bilowdaa. maxaad u dhaxaynaysaa mutawasit? maxaa u tahay? waxaa mutawasit u tahay magaranaysaa inaa arrinkii ku degdegtid iyo inaad caajistido meeshaadii iska fadhiyid. inaad meeshaadii iska fadhiyid oo aad far dhaqaajin weydid lama rabo taas, oo aad iska aamustid oo magaranaysaa aadan waxba samayn. in aad ku degdegtidna iyadana lama rabo oo magaranaysaa dee marka hawshii samaysid oo aad degdeg wax kastaba aad isdhahdid ku gaadh. markaana almuhim waxa weeye adigu waxaa samaynaysaa insha allahu tacaala arrintaada iska bilow. waxaa ku soo baxaysa qaarna inaad ku degdegtid, qaarna inaadan ku degdegi karin. kuwa ku degdegi kartid ku degdeg, kuwaadan ku degdegi karinna dee magaranaysaa faraha ka qaad oo xilligeeda sug. laakiinse maaha sida dadka qaar ay dhahaan magaranaysaa ha degdegin, iyagoo doonaya iyagoo ka wada macnaha waxba ha samayn oo kale, oo waxay moodayaan degdegu inuu yahay inaad meeshaada iska fadhiistid oo aad waxaad ku hameynaysid aad doonaysay inaadan farna u dhaqaajin. walaa xuquud walaa bakhiil, qofkaasu xaasid maaha, bakhiilna maaha, xaqdina maaha, bashaashan hashaashan weeye. waa qof bashaash ah oo firfircoon. sideedaba akhlaaqda wanaagsan waa akhlaaqda xun hadeer uu kasoo sheekeeyey. oo qofka akhlaaqda wanaagsan uu ka fog yahay waxa weeye qofka magaranaysaa akhlaaqda xun ku sifaysan, sida xaasidka, qofka carada badan, qofka dadka isku dira, namiimiyaha, waxyaabahaas. qofkaas dulli buu ku nool yahay. almiino dulli weyn ayuu ku nool yahay qofkaas. sababtoo ah oo sababta dulli ugu nool yahay waxa weeye qofkii magaranaysaa sababta dulli ugu nool yahay waxa weeye qofkii dhamaa la doonayay hamiga weyn inuu qaado, la doonayay inuu magaranaysaa nin raga noqdo, la doonayay inuu magaranaysaa qof wax soo saar badan iyo qof magaranaysaa hami weyn leh iyo qof magaranaysaa iimaan iyo diin leh iyo meel sare iyo horumar laga doonayay, ayaa maanta dhan wuxuu ku wareegayaa inuu dad isku diro iyo inuu qof xaasido iyo inuu dad dab dhex dhigo iyo inuu qof cajis geliyo iyo inuu qof waxyaalo far badan dhaadhaafiyo. waxyaabahaas ayuu ku mashquulayaa. marka waxyaabahaas waxa weeye waxyaabaha qofka hamiga yar ee dulliga keenaya, aakhiro iyo adduunna dulli ku keenaya, meel hoosena ku dhaxalsiinaya mustaqbalkaaga. marka waxyaalaha waa inaa laga fogaadaa. bashaashan yuxibu fillaahi wayardaa fillaahi wayaqtabu fillaahi, waxa weeye qofkaas waa qof yuxibu fillaahi, ilaahay daraadii wax u jecel. haddii uu wax jecel yahay ilaahay daraadii ayuu u jeclaanayaa. wayardaa fillaahi, hadduu wax ka raali noqdana ilaahay subxaanahu watacaala daraadii ayuu ka raali noqonayaa. wayaqtab fillaahi, ilaahay subxaanahu watacaala daraadiina wuu caroonayaa. dad badan baa waxaa ka maqlaysaa iyagoo leh qofkaa daraadii wax u samee, qofkaa daraadii waxaa u gaadh, qofkaa daraadii waxaa magaranaysaa u sii, qofkaa daraadii waxaa u diid, qofkaa daraadii maanta dhan kusoo celinaya. sababtoo ah qofkaas waa qof magaranaysaa ilaahay ka fog oo qalbigiisa ilaahay jacaylkiisa iyo inuu daraadii wax u sameeyo gelin wey. hadhowna waxay ku qaadatay inuu qof daraadii wax u sameeyo. markaana iska ilaali qofkaas oo kale, sababtoo ah waa qof baciidan can illaahi subxaanahu watacaala, waa qof ilaahay ka fog abadan. ilaahay subxaanahu watacaala wuu ka fog yahay. maadaama ilaahay uu ka fog yahay inuu qofkaas ku saameeyo diintiisii dayacay oo bini aadanka iyo makhluuq aana waxba ahayn oo beri laga yaabo inuu ku naco weyneynaya oo daraadii wax u sameynaya, magaranaysaa qofkaas waa inaadan aqbalin oo aad ka fogaataa. wayaqdab fillaahi, waa qof ilaahay subxaanahu watacaala daraadii u caroonaya, qofka magaranaysaa wanaagsan ee akhlaaqda wanaagsan. marka waxaa la doonayaa insha allahu tacaala akhlaaqda wanaagsan ee uu shiikhu soo tiriyey in aynu aqbalno, aynu raacno, aynu isku qurxino insha allahu tacaala, aynu noqno kuwo ku fakara akhlaaqdaas inay meel ka gaadhaan. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri khaslataani laa tajtamicaani fi mu'min, albukhlu wa suu'u lkhuluqi. laba sifooyin kuma kulmaan qofka mu'minka.
sheega dhaho albukhl inuu qofku bakhiil yahay oo ma garanaysaa oo gacan adag yahay oo dadka wax u diido in ma garanaysaa oo khayrka uu ka fog yahay. Bukhligu sidaas oo kale qofka bakhiilka ah siduu gacantiisa ugu diiday inuu u sadaqaysto ayuu jawaarixdiisna wuxuu u diidaa inuu sadaqaysto ilaahay ku caabudo cibaado fara badan. Waxaa laga yaabaa 5 salaadood iyo xogaa yaroo waajibaada inuu ku gaabsado ayaa laga yaabaa, sababtoo ah waa qof bakhiil ah oo ma garanaysaa diidan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jasadkiisa iyo jawaarixdiisa iyo qalbigiisa iyo meel kastaba uu ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyo. maadaama ma garanaysaa dee bukhliga waxaa kasoo horjeeda oo ay tahay siismo inaa qofkii wax siisid, inaa dad kale wax siisid. saas oo kale dee waxay keenaysaa in jidhkaagii iyo qalbigaagii iyo jawaarixdaadii iyo sadaqadii iyo hantidii iyo lacagtii inaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bixisid daraadii u bixisid oo aakhiradaada u dibdhigtid. bukhli waa su'ul khuluq iyo akhlaaq xumo, qof akhlaaqdiisu ay aad iyo aad u xun tahay. su'ul khuluq dee waa qofkii akhlaaqda xun oo dhan qaatay, akhlaaqda xun oo dhan isku ma garanaysaa labistay, akhlaaqdii xumaa mahaane wax kale ana samaynayn.